tagaya wadaadda oo jaahiliin ah oo aan garanaynin dadka sida loo cilaajiyo. يعني ماشي تي wax ka toosin lahaayeen qofku wuxuu arkayaa waba ka sii daraya wuxuu leeyahay ninka markaan u tagay jirada wabi iga sii badat jinniga wabi igu soo arkaaday jinniga wuxuu noqday qof madax adag rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam. dad badan oo idin ka mid ah waxa daa'iman su'aal ay isweydiinaya hadii gabartahay isweydiinaysaa maxuu jinniga jirkeyga ugu raagay intaasoo sanooyin. waxaa jiro 10 asbaabo oo jinniga jirkaaga bixi waay. dad badan waxa waaye ma fahamsano waxa jinniga ilaa hadda uu ku haayo jirkeeda. intaas oo sano cilaaj ay ku dhex jirtaa marka way ka daashay shiyooq badan u tagtay barnaamij badan ay isticmaashay ilaa hadda waxaad arkaysaa jinnigi maaragtay inuusan jirka ka bixaynin oo weli jirka uu ku jiro. sababta ugu horeysa waxa waaye waa cuqadka adiga jirkaaga ku jiro waa. cuqadkana waxaa la yidhaha guntiimooyin. guntiimooyinkan waa inaad ogaataa jirkaaga xagguu ka yaallaa. marka inta cuqadkan ay jirkaaga uu ku jiro jinniga wuxuu haystaa meel uu ku gambado. marka waxa waaye hadda kor duruustan waxaan ku dhahnay jirka wuxuu u kala qaybsamaa afar qaybood. nus bidix midig iyo bidix ayo xundurta wixii ka hooseeya iyo xundurta wixii ka koreeya. marka qofku waa inuu ka raadiyaa jirkiisa meelaha oo maaragtay oo u badan yahay oo yaallo guntuumooyinka meesha ay ka yaallaan jirkiisa. ma haddaa barato waxaad ogaanaysaa 50% caafimaadkaaga wuu soo degdegaya. laana jinniga waxaad nolosha ayaad ku cariirinaysaa oo waxaad ku dadaalaysaa sida guntuumooyinkan jirkaaga aga baxaan. kaas waa number 1. number 2 qofku waxaad arkaysaa inuu dikrigiisa yar yahay. dikrigiisa yar adkaar sabax wal masaa ma akhriyo. waxaa dhici kartaa inuu ma aragtay oo macaasida uu ku dhex jiro. marka waa waxyaalaha jinniga ma aragtay xoog u yeelo. qofka damoor oo ka dheer yahay ma aragtay dhikrullah dhikriga ilaahi oo ka dheer yahay quraanun akhrinaynin salaadiisa galab ay tahay macsidiisa badan waxaad arkaysaa jinniga waa waxyaalaha oo ku sii adkaado oo jirka aaga bixin. number 3 waxaad arkaysaa qofka inuu jaahil uu ka yahay sida cilaajada loo isticmaalo ama wuxuu u tagayaa wadaadda oo jaahiliin ah oo aan garanaynin dadka sida loo cilaajiyo. يعني ماشي تي wax ka toosin lahaayeen qofku wuxuu arkayaa waba ka sii daraya wuxuu leeyahay ninka markaan u tagay jirada wabi iga sii badat jinniga wabi igu soo adkaaday jinniga wuxuu noqday qof madax adag oo ma aragtay oo canaada oo xanuunka igu siyaadinayo. laana waxa waaye waxaad u tagtay qof aan waxba ka fahmaynin shaqadan mise adigaaba waxa isticmaashay cilaaj oo khalad ah jinnigii oo ma aragtay oo iska caadi iska haaya isku kicisay oo kugu xanaaqay oo xanuun kugu siyaadiyay. number 4 waxa waaye waxaa dhici karta inuu yahay jinnigan jinni oo ballan qaad soo galay. ballan qaadna waxa waaye yani wuxuu ka ballan qaaday sixroolaha ayuu ma arag u shaqeeyaa. ballan qaadkana kama bixi karo. waa waxay dhahaan sixir takliif. sixir takliifna waxa waaye waa sixirka qofkan sida askari oo kale ayaa loo soo diray. shaqadan qabo balana lala galay hadda ballankan aad ka baxdo waxa waaye adiga noloshaada ayaa khatar ku jirto oo waa lagu dilayaa. mar sidaas darteeda wuxuu ka cabsanaya inuu jirkaaga ka baxo oo banaanka ayaa loo taagan yahay. wuxuu leeyahay haddaa baxdo oo adiga ay shaqada qaban waysay in lagu dilo ayaa dhici karto. marka saasna waa dhici kartaa inuu jinniga jirkaaga aga bixi waayo. tan shanaad waxa waaye jacayl. waxa waa jinni caashiq waaye adigoo ku jeclaaday jirkaaga u jeclaaday ruuxaaga u jeclaaday. waxaad arkaysaa inuu ma aragtay oo ku mintidahay oo ku mintidaa dagaal xoog ayuu qaadayaa sidoosan jirkaas aga bixin. marka waxa waaye kana oo kale waa noocyada uu xoogaa adag oo waxa waaye wuxuu ku soo galay jacayl. qofna hadduu qof jecel yahay ma aragtay xoogga ayuu saarayaa sidoo qofkan u haysto uusan ugu tanaasulin. marka waxaa dhici karta inuu yahay jinni caashiq ah oo u baahan xoog in la saaro sidoo jirka aga bixi lahaa. number 6
waxaad arkaysaa sixirka mar walba adiga waa dadaalaysaa laakiin waa lagu soo jidiidinaya waa lagu soo jiidin mar walba adiga markaad qabato oo tiraahda maasha allah wax baa iga khafiifay wax baa ii kala degay cunto ayaa lagu siinaya habeenka adoo jiiftid mise waxa waaye waxaad arkaysaa waa lagu kufsanayaa kufsadaas waxaad arkaysaa inuu sixirka saas lagu jidiidinayo qofka la kufsanaya sixirka ayaa loo jidiidin ama wuxuu dareemayaa qofka asoo socdo cirbad in lagu diraa camal wax qof cirbad lagu diraa oo kale ayuu dareemayaa sidaas ayuu sixirka lagu soo jidiidinaya waxaad arkaysaa inuu shaydaanka maaragtay ou yahay mid asaga kaliis iska socdo oo waxa ah nooca oo shaytaanka caabudo shaydaanka ayuu caabudayaa ilaahaygiisa waa shaydaan jinnigan shaydaanka ayuu caabudaa marka ilaahaygiisa ayuu ka cabsanaya waa tan lixaad waa tan toddobaad ilaahaygiisa ayuu ka cabsanaya wuxuu caabudaa shaydaanka marka wuxuu leeyahay haddaad ka baxdo ilaahagaaga wuxuu noqonayaa oo ka xanaaqsanaya qadabka ilaaha kugu dhacay lacnad ay ku korayso marka sidaas darteed wuu ku mantidayaa sidoosan jirkaaga aga bixin tan sideed waxaad arkaysaa qofka bii'ada oo ku nool yahay guriga oo ku nool yahay ayaa sixiro yaallo bas waxaa dhici kartaa inuu guri iimaani uusan ahayn guri khayr ka socdo fusq ayaa ka socdo muusiga ka socoto dadka maaragtay dadka dugtaan ma dugtaan waxaa dhici kartaa inay balwad ay ka socoto jaada lagu cunaa sigaara lagu cabaayo guriga ahlul khayr ma joogaan bii'adu waa biyo oo maaragtay oon khayr iyo nuur aan ka jirin marka qofka maaragtay jinniga markuu waxaas arko waa waxyaalaha uu kusii adkaado oo qofka maaragtay jirkiisa aan ga bixin number 9 waxaad arkaysaa qofkii inuu yahay qof tawbadiis dunuub badan ayuu ku dhex jiraa iimaankiisa daciifa wuxuu iimaankiisa daciif u yahay kabiira min alkabaa'ir ayuu samaynayaa mana ka toobad keenan kabiira min alkabaa'ir maxaa waaye waxaa dhici kartaa inuu khamro cabaayo inuu zinaysanayo inuu maaragtay wax xado inuu dadka khiyaano waxyaalahaas ayuu kabaa'ir ayuu sameeyaa dadka ayuu dhacaa marka jinniga maaragtay waxyaalaha uu kusii adkaanayo waayo oo maaragtay oo jirka uu xoog ku yeelanayo oo hore uusan u lahayn tan ugu dambaysa waxa waaye waxaa dhici kartaa inay tahay inuu ikhtibaar min allah subxaanahu wa tacaala waxaa dhici kartaa inay tahay imtixaan qofkan oo ilaahay uu ku imtixaanayo oosan jinniga maaragtay jirkiisa aan ka bixinin oo saas adduunkan aga tagayo marka ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu fiirinayaa ninkan sabarkiisa waa tii hadda kor nabiga calayhi salaatu wasalaam gabadha u timid nabiga calayhi salaatu wasalaam uu yiri yaa rasuulallah innii usrac waxay tiri aniga maaragtay waan dhacaa jidka ayaan ku dhacaa jirkeeda ayaa jinni deganaay marka waxay tiri ii duceey inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan iga bixiyo markaasuu yiri ma u sabraysaa walaka aljanna u sabruu yiri jannadaad galaysaa saas miyaa ay tiri haa haddee saas tahay waa u sabrayaa ay tiri laakiin markaan dhaco ii duceey inay cawradeeda la arkin marka nabiga calayhi salaatu wasalaam saas ayuu ugu duceeyey marka mar waliba way dhacaysay laakiin cawradeeda ma la arkaynin ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa xafiday marka dadka qaarkood ilaahay imtixaan ayuu uga dhigayaa waxaana dhici kartaa inay tahay adiga sababtii adiga aad janno aad ku gali lahayd marka asbaabtan 10 ayaa dhici kartaa wuxuu jinniga jirkaaga ugu raagay oo u bixi waayey oo u baahan maaragtay inaad si fiican aga fikirto sidoo jirkaaga aga bixi lahaa insha allah subxaanaka allah bixamdik ashhadu an laa ilaaha illaa ant nastaghfiruka wa natuubu ilayk wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu